aqoontiisa oo tayo leh maadi iyo diiniba waxa kale oo iskuulada kala dheeriya Burco Academy inuu ardaydiisu la tartami karto ardayda caalamka aanad waxbarasho dibadda ka heli karto jaamacadaha caalamka waxaan ku warwareynaa dadka reer Burco sida loo maleeyo iyo sida ay actually yihiin kala duwan tahay dadka reer Burco markii aan u tagay waxaan ka haystay sawir aan ahay sawirkii aan kala kulmay markii aan live u tagay meeshii aan nolol ku qaatay dadka reer Burco waxaan aad i soo dhaweeyay aanay dareensiin aan gobolkayga Kiinto aan gobol kala joogo kaliya waxaan u noolaa sida aan u noolaan jiray gobolkayga markii aan joogay wax carqalada aan wax dhibaato aan kala kulmay ma aysan jirin aad waan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii boolinkayga la noolaa asxaabtii familiyadoodii macallimiintii shaqaalihii dhammaan aad uga mahadcelinayaa sida quruxda badan ay la dhaqmeen iguna soo dhaweeyeen gobolka aan mayno wahsanayno waaban mayno waxa kaloo ku darayaa in iskuulka ay joogaan macallimiin ajaanib boarding schoolka ay joogaan macallimiin ajaanib ah kuwaas oo chance ku siinaya inaad luqadda Ingiriiska si fiican u barato markii ugu horeysay aniga Burco Academy tigay way ku adkeyd Ingiriiska inaan si fiican u fahmo laakiin xataa waan ku hadli karaa sidoo kale Burco Academy ma kaliya maaha iskuul waa boarding school aad deganaanshiyo aad seexanayso aad wax ka dhiganayso aad wax ka cunayso aad 24 hours joogayso weekly marka waa meel aad wax uga baran karto nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga programkan anigu ku guuleystay waxa la yiraahdaa UWC East Africa waa 2 sanadood oo dugsi sare ah oo 2 sanadood oo sare dugsiga sare ah programkaasina waa program haddii markaad sii dhamaysato aad uga sii gudbi karto jaamacad dibadda ah aad iyo aad baan anigu ugu farxay inaan jaaniskaasi helo aanan ugu dadaalay in badan familkayga iyo intaas iyo kuna support la garab taagnaana aad baan ugu farxay sidoo kale waxay farxad u tahay iskuulkayga oo aan ahay ardayda ugu horeysay Burco Academy scholarship dibadda ka hesha iguna support gareeyay haddii ay tahay dhanka aqoonta iyo haddii ay tahay inay soo helaan fursado waxbarasho oo free ah iyo ka qaybgalistooda waxaan nahay wanada macallinka waxaan isleeyahay Burco Academy wax badan u qaban kartaa kaliya Burco Academy maaha wadanka waxaan aaminsanaa wax badan ka bedeli karo wax badan oo qaban karo maadaama aan ahay gabadh ayna yar tahay dumarka aqoon asaasa ah oo tayadaas la helaa ay ku yartahay wadanka gaar ahaan waxaan si gaar ah u rajaynayaa inaan iskuulkayga ku soo noqdo wax badan aan ka qabto cilmiga aan soo bartayna aan kaga shaqeeyo wadankayga si gaar ah iskuulkayga waxaan nahay wahdiga dugsiyada dhammaan ardayda waxaan ku dhiirigelinayaa inay yimaadaan iskuulka Burco Academy anigoo la jecel aqoontii iyo fursadii aan ka helay Burco Academy tayada lahayd aanan ku farxay inay ka helaan iyaguna ay tahay aqoon aad kula tartami karto dadka caalamka aad ku tagi karto jaamacadaha caalamka aanad kaga qayb qaadan karto tartamada caalamka ay kula jiraan dhalinyarada kale saas darteed waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaantood waalidiinta iyo ardaydaba inay ardaydooda keenaan ardaydu inay timaado ay helaan aqoon tayadeedu aad u sareyso